wasiirka wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Cabdilaahi Sheekh Maxamed Cige iyo agaasimaha wasaaraddaasi Faysal Sheekh iyo waliba agaasimaha waaxda maaliyadda Soomaaliland ayaa hor yimid gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo kulankaasi oo ka qabsamay hoolka ay ku leeyihiin xaruntaasi iyagoo ka dhageystay wasiirka waxyaabaha ay qabato wasaaraddaasi dhanka kale waxa ay ka wareysteen wasiirka waxyaabaha ay ka mid yihiin isku xidhka telefoonada iyo sidoo kale minidka ku hadalka telefoonka ugu horreyn madashaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka waxaa sidoo kale halkaasi ugu dambeyn ka hadlay wasiirka wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland maanta oo bisha February 8 2017 xafiiska gudida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka waxaan lagu soo booqday oo loogu yimid wasiirka isgaarsiinta iyo DCGC iyo agaasimaha waaxda xagga maaliyadda ruhantii si wanaagsan bay noogu warameen wax fara badan oo ku saabsan wasaaradda ayay runtiina siiyeen macluumaad fara badan oo aanu ka doonayna aad iyo aad aan uga waramay waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii aan dhinaca ku soo xakamida arrinta ku saabsan interconnection si la isku xiri lahaa telefoonada baan ka wada hadalnay waxaan kaloo aad iyo aad uga wada hadalnay arrinta ku saabsan in la ogaado minuteska ee lagu hadlo qaranka si uu ogaado oo marka laga duuliyo sidii cashuur xaq loogu leeyahay wasaaradda ama xajida shirkadda isgaarsiinta in laga helo iyo waxyaabo fara badan oo ka mid ah sidii ay shirkadooda xajida si ay wasaaradda noqon lahayd wasaaradda runtii qorshe loo shaqeynaysa baan ka wada hadalnay waxaas oo dhan si wanaagsan soo afkarnay aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa si wanaagsan inuu yimaadeen mar kale diwaan mahadsan bismillahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan dabagalka iyo maxay ahayd dhaqaalaha ilaalinta hantida qaranka oo maanta xafiiskooda noogu yeedhay oo aanu si wanaagsan oo u wada hadalnay waxyaabaanu ka wada hadalnay waxaa ka mid ah telefoonadan shirkadahan telefoonada Telesom iyo Somtel iyo kuwaasi in loo sameeyo interconnection ka dhaxeeya oo mesela hada Telesom de waxa uu tiyaasna waa Telesom laakiin in Somtel iyo Telesom wixii shirkadihiis isku wada xidhnaadaan oo interconnection loo sameeyo wadbika doontid kala xiriir kartid mobilkaaga kala xiriir kartid arrinta ugu muhiimsan taas ay hayd iyo cashuuraha ka baaqday dawladda cashuuro badan ayaa dawladda kaga baaqda shirkadaha isgaarsiinta oo aan maxay hayto maaliyadda barahayo toos u xiriiraan shirkadaha sida waxan aniga ku dhow ka filayna waa shirkado maxay hayto qaran oo cashuur bixiyaala oo in la dhowro oo la dhaqaaleeyo u baahan iyo kuna hantida qaranka in iska yar waa loo baahan yahay iyaguna inay kubcaan oo entrepreneurs waynu private sectors waynu dhiirinayna iyagana waan dhiirinaynaa inay sare u sii socdaan waxa ku waajiban iyaguna ay yeelaan dawladda ka yeelaan Khalid Yusuf Xasan Khalid Fantastic Television ka caalamiga waa Bari TV magaalada Hargeysa.